سفيرك الدولة دليرة هاي القرن الصيني وفدي ودن كجرماني أمباسطور جامع عبد جيري يا ما أنت شلي هاي صحافة دوغور بحيي حولي هو قبصمي مددي وحلك هي وحقبت كالدولة ودن كجرماني مددي عن حلك أمباسطور لماذا دليرة هاي القرن الصيني ودن كان شرملك عن هي وحي قبصمي وحيابا أدم مهمة وحيابا هاي قبصمي وحكمي القدب كوباد وهر يا وحوي midaynta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dhaqan wadankan Jarmalka taasoo ah qodob aad u muhiim ah waxaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland wadankan Jarmalka ku dhaqan kaabanstoor ahaan ka caawiya u sameeya isku xidhkooda qabashada sportiska isdhexgalkooda waxaan u joogteeyaa shirar fara badan dhalinyarada isku timid sidii wadankii ay ka yimaadeen ay wax ugu celin lahaayeen sida iyagu wadankan intay aqoon uga bartaan wadankoodii ay ku celin lahaayeen sidii qof walba uu noqon lahaa qof noloshiisana kaafiya noloshii dadkii u keemiye wadankiisina wax ku celiya qodobka labaad waxaan sidoo kale sameeynaa ama kaabanstooraan sameeyaa ajandayaasha soo dhaweynta madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland ee nagu soo booqato wadanka Jarmalka anigoo mararka qaar soo casuuma wasiir haday noqoto xildhibaan haday noqoto halkan keena dhalinyarada la kulansiya isxaal waraysi madaxdu uga waranto wadankii waxa yaala iyagoo uga warama halkan waxa yaala isku xidhkaas ayaan hadafka ugu weyn aan waqti ku bixiya sidii aan u xoojinaa sidoo kale safiirku wuxuu warbixin saxaafadda ka siiyay wada shaqeynta ay leeyihiin dhalinyarada jaaliyadda wadanka Germany iyo dalada heer qaran ee wadanka gudihiisa ku sugan ka badan aan leenahay maadaama aniga kaabanstoor ahaan daladii dhalinyarada Soomaaliland Soonya ay soo magacaawday wadanka Jarmalka waxaan wada shaqeyn buuxda la leeyahay dalada dhalinyarada Soomaaliland wadanka Jarmalka dhisan SYDA taasoo iska kaashano dhinacyada sportiska dhaqanka wacyigelinta seminaaro furista dhalinyarada xoojinta xiriirka dhalinyarada wadankii iyo dhalinyarada halkan joogta isku xidhka xukuumaddeena Soomaaliland iyo dhalinyarada halkan joogta sidan daladii dhalinyarada heer qaran Soonya in halkan joogay ugu xidhilaa dalada dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland wadanka Jarmalka dhisan SYDA iyo Soonyo sidaan iskugu xidhilaa maadaama dhalinyarada halkan joogta iyo dalada heer qaran wadankii ka dhisan ay yihiin qaar dan isku mid ah u taagan ugu dambeyntii safiirku wuxuu digniin adag u diray dhalinyarada ku sifowday kala qaybinta dhalinyarada reer Soomaaliland ee ku shaqeysta masabyada been abuurka ah ee marhabinta ku wada dhalinyarada aan ugu baaqay inay wax bartaan oo ay ka dheeraadaan falalka xunxun ee noocaas ah fadlan intaad kala fogeynaysaan dhalinyarada Soomaaliland aad reero iyo qabiilo u kala saaraysaan dhalinyarada iyo walaala ah isku dada isku meel ka timi fadlan intaad sameynaysaan magacyo iyo mansabyo been abuur ah oo dhalinyarada ku kala fogeynaysaan ama ku kala fuquuqaysaan ka waantooba waxa intaad baranaysaan ku xadgudubka sharciga inoo yaala iyo qabyaaladda fadlan barta soo dhawaashaha dadka iyo wax la qabsiga dhalinyarada Soomaaliland kaabanstoor ahaana waxaan markasta diyaar u ahay inaan haddii alla badanka dhalinyarada gacmaha isu qabadsiiyo aan si wanaagsan dhalinyarada iskugu xidho dadka laakiin sida xun wax u sheegaya ee dhalinyarada kala fogeynaya digniin baan u dirayaa waxaan leeyahay sharciga iyo kala dambeynta dhowra kaabanstoor ahaan uma dul qaadan doono in dhalinyarada kala fogeystaan markasta hadafkaygu waxa weeye midaynta dhalinyarada Soomaaliland ee wadanka Jarmalka la shaqeynta dalada dhalinyarada Soomaaliland ee SYDA ee wadanka Jarmalka jirta iyo daladii dhalinyarada heer qaran ee Soonyo ee halkan aanu joogay sidii aan iskugu xidhilaa labada dhalinyaro aan u xoojin la wada shaqeyntooda iyo wanaagooda taas baa aniga muhiim ah qodobka ugu dambeeyaan kaga faa'iideysanay halkan aan diray waxa weeye wadankeeni waxa ku soo socota doorasho dhawaan waqti yar baa ka dhacay doorashadii waxaan oran lahaa dadka reer Soomaaliland gacmaha isqabsada asxaabta mucaaradka iyo muxaafidka waxa weeye dan qaran baa inaga dhaxaysa Soomaaliland la yiraahdo in wada ilaashano haddii madaxda xisbiyada tahay haddii tahay shicibka danteena in wada ilaashano qarankeena inuu ka noqdo gacmaha isqabsano is soo dhawaano dhamaan waxaan leeyahay dhalinyaraduna mustaqbalkii maanta tiin wadankii jooga iyo kuwa halkan jooga waxaan leeyahay qarankeena idinku ilaashada